بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد runtii 5TV waan idinka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah walaal runtii dee arrintu way iska cusbayd laakiin odayaasha waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo waxaa jiray 3 oday oo ka tirsan waxgaradka iyo culimada raaso oo Addis Ababa joogay bariyahanba odayaashaasi waxay Addis Ababa u joogeen dhalinyaro bishii 9-3 caruur lagu laayay oo ciidamada liyu boolisku ay ku xasuuqeen ayaa waxaa dhacday dhaawacoodii oo 19 xubnood ahaa 6 caruur dhimatay iyo haweeney uur xaamilo ah marka dad 19 qof oo dhaawaca ayaa waxa la geeyay isbitaalada Addis Ababa marka odayaashaas waxay kamid ahaayeen dadkii u gargaarayay caruurta dhaawaca ee ilmaha yar masaakiinta ah marka Addis Ababa joogeen isbitaalada gegeynayeen marka waxaa dhacday in baabuur degmada dhagax buur ay leedahay lagu soo afduubay kadibna Addis Ababa laga soo qabtay odayaashaas waxaana la keenay Jigjiga walaal sababta loo soo afduubay waxa weeyaan Mustafa wuxuu caadeystay cagajugleynta iyo cabsi gelinta wax ujeedku kaliya waxa weeyaan inuu cabsi geliyo oo uu muujiyo in qof kasta uu ka soo horjeesado aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo qorshahiisa guracan madaleysnimada ah cidii ka soo horjeesataba inuu yiraahdo waan xidhayaa marka taasna waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed ma noqon doonaan kuwo cabsidaas ay u hirgasho waayo waxaan ogeyn Cabdi Maxamuud Cumar oo ahaa qof in badan soo xukumay wadanka cid ka awood badnayn ayna jirin ay shacabka Soomaaliyeed maya dhaheen xadhigii iyo tacaddigii iyo jirdilkii marka tan waxaan isleeyahay ma sii socon doonto odayaashana hadii la yiraahdo waa la soo deyn doonaa waqtiga doona ha qaataan walaal waxaa dhacday hadda ka hor in Mustafa uu sameeyay go'aan ah in uu yiraahdo deegaano kamid ah deegaanka raaso gobolka Afdheer in dad shacab oo deganaa uu yiraahdo ka guura waayo deegaankan reehbel baa iskale ama qabiil kale oo Soomaaliyeed oo dad walaalo ehleeyahay baa iskale oo ku wareejinaya marka odayaashan saddexda waxay kamid ahaayeen odayaashii ku yiri maya waxaad wada waa cadaalad darro shacabka Soomaaliyeedna waa dad walaala waa dad ehla waxa wada deegaanka ha kuna wada noolaadaan laakiin gurigan iyo deegaankan bareehbel baa leh meel cidla ah suurtagal ma noqonayso marka Mustafa tiibu damcay inuu marsiyo oo ka adeegsado nasiib wanaag marka dadka waxgaradka ah ee deegaanka degan way ka soo horjeesadeen arrintii lamayna qumanaanin kadibna waxay ka qaateen rafcaan waxayna aadeen Addis Ababa iyaga oo rabay marka inay ka dacwoodaan falka xun ee Mustafa ku kacayo laakiin waxa runtii markii dambe dhacday khasaaro xun go'aankii khaldanaa ee uu qaadanayay oo in badan aan uga digaynay Mustafa oo lahayn ka joog waxyaabaha ku socoto waa khalad meel xun bay ku dhaxalisiin doontaa waxa ay galaafatay in dadkii shacabka ahaa iyo caruurtii raaso si badheera xabad loogu furo xabad nool ciidamada liyu boolisku ay ugu furaan waxa ay xabadu ku dhacday dad ka badan ilaa 30 qof waxaana ku dhintay 5 caruur iyo qof dumar oo xaamilo ah waxa ku dhaawacmay dad fara badan ilaa 22 laakiin hadda 19 baa xaaladoodu khatar ah oo yaala isbitaalada Addis Ababa Mufobey Nasired Awasa deegaanadaas Etoobiyadaas yaalaan marka halkaas yaalaan walaahi xalku waxa weeyaan qofka bilaadamka hadii uu cadaalad darro ku socdo waxa loo baahan yahay cadaalad darrada uu ku socdo inuu ka soo noqdo marka Mustafa ku xiran tahay xalku waxa weeyaan Mustafa inuu joojiyo xadhiga inuu joojiyo cadaalad darrida inuu joojiyo barakicinta inuu joojiyo musuqa inuu joojiyo caburiska inuu joojiyo afduubka marka waxyaabahaas oo dhan uu isleeyahay kursiga ku sii haysanaya inuu joojiyo bay ku xiran tahay cadaaladu dadka deegaanka walaal waa dad walaala waa dad shacaba waxba kama dhaxeeyaan si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed mar walbana waxaan ugu baaqaynaa dadka shacabka ee deegaanka degan inay samraan oo dul qaataan oo walaaltinimadooda iyo midnimadooda Soomaaliyeed ay adkeeyaan